kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Barca 252 Luis Suarez oo guul soo laabasho leh ku hogaamiyay Barcelona Inter ayayna kabaha la dulmareen Barcelona ayaa gaartay guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka Champions League kadib markii ay 2-1 ku suldareen kooxda Inter Milan oo marti ku ahayd garoonka Nou Camp iyadoo oo Luis Suarez uu dhaliyay labada gool ee ay Barcelona ku badisay Lionel Messi ayaa lagu soo bilaabay shaxda Barcelona kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawac uu ku maqnaa kulamadii u dambeeyay halka Inter Milan uu ka maqnaa weeraryahanka Romelu Lukaku. Daqiiqadii saddexaad Martinez ayaa kubad fiican loo dhigay isaga oo kubadda ka xoogsaday Lenglet ka hor inta uusan ku dhameystirin cagta bidix isaga oo daba mariyay goolhaye Mark ter Stegen. Daqiiqadii 58 Barcelona ayaa goolka barbaraha heshay kadib markii Kroos uu soo dhigay Arturo Vidal iyadoo Luis Suarez uu kubad fiican daba mariyay goolhaye Zamir Handanovic taasoo ciyaarta ka dhigtay barbaro gool iyo gool ah. Daqiiqadii 84 Barcelona ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta markii uu Messi kubadda ku garaacay Asamo isaga oo u dhigay Suarez kaasoo si fiican u kontrolay isla markaana shabaqa ku hubsaday waa goolkii labaad ee uu dhaliyo xidiga reer Uruguay. Barcelona ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Inter Milan iyadoo Blaugrana ay guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan Champions League ay gaartay. Channelkan Barca 252 fadlan rukumo channelkan hadaa ku cusub tahay intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.